xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo xubin ka ah golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa safar qayb ka ah qorshihiisa ogaanshaha baahida bulshada uu matalo maanta ku gaaray degmada Matabaan iyo deegaanka Girijir ee gobolka Hiiraan halkaasi oo si diiran ay ugu soo dhaweeyeen maamulka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada kuwaasi oo wadooyinka u soo baxay si soo dhaweyntiisa ay qayb uga qaataan xildhibaan Mahad Salaad oo soo dhaweynta kadib la kulmay qaybaha kala duwan ee bulshada Matabaan iyo Girijir ayaa kala hadlay baahiyaha aasaasiga ah ee ka jira goobahaasi iyo sida ay muhiimka u tahay in wax laga wada qabto horumarinta deegaanada qaar ka mid ah xubnaha maamulka iyo bulshada ayaa xildhibaanka u sharaxay culayska habraaca maamul ee deegaanadaasi maadaama deegaanadani ay ka tirsan yihiin gobolka Hiiraan balse aysan helin xuquuqda ay ku leeyihiin maamulkaasi degmada Matabaan marka oo baaxadaas la qodqod Girijir beergadiid Matabaan oo Tonkiya rabitaan ay ku baahan yihiin waxay intaas martaqada kugu sameynayaan waxaan rabnaa inaan il gaar ah nagu eerto mudane waxaan rabaa inaan aad gaayar u milicsado safarkii xildhibaanka ujeedooyinkiisii uu ku soo sheegay oo aheeday inuu deegaanada marayo inuu dubheshiin gelinayo inuu baalkiliyada shir meesha laga sameeyo waftiga hordhac yahay intaba aadan kugu mahad celinayna markan ugu dambeeyana Matabaan lagu soo dhaweeyaa xildhibaan qaali ah tahay maxaan isleeyahay saaka dadkaaga waa u jeedaa shucuurta ka muuqata xaaladada way isbedelayaan isleeyahay maantay ilaa baryaxana way isbedelaydi waa dadkaagii ku soo dhawaaw waa degmo aad u daalan waa degmo xagga siyaasiyiinta ka daalan waa degmo xagga ganacsatada ka daalan waa degmo xagga dhaqanka ka daalan waana degmo qadiimiya oo aad ku xisaabtaminay haddii qurbo joog yihiin haddii diyaasbar yihiin halka degmo aan ku xisaabtamayno oo la agraday waaye waxaan rabnaa xildhibaan kaana codsanaynaa maanta inaad Matabaan gacanta ku dhigto dhibaato iyo dhib kale ma aan qabno dhibaatadan qabna waxa noogu badan cisbitaal la'aan isbitaalkii oo noo yaalo dhagaxii iyo oo noo yaala ciidii wax kale oo ku samaysan aan weyn waqtigaana waqti qayraysan oo yahay adigoo dalka iyo dadka iyo diinta u dhashayna maanta Ilaahay noo keenay waxaan codsanaynaa wax la codsaday Ilaahay baa leh taas inaad naga saacido iyo wax ka sii badan ayaan ka codsanaynaa xubno ka tirsan baarlamaanka Galmudug oo xildhibaanka ku wehelinayay safarkiisa ayaa iyagu dhankooda goobta ka hadlay Galmudug iyo dawladda waxay idinka jira waxa aan dooni karno waa idin doonaynaa laakiin Matabaan adinka la idinka rabaa inaad soo leedahay waxa hadda Matabaan yara waxa laga sameeyaa meesha shoo dhinaca beergadiid xageeda inay dhacdo maahan ognahay waxaan maleynaa maanta inaad sharaf u yeelateen inaan hadda ka hor in arkin xildhibaan ku matalay dawladda dhexe xildhibaano iyaga state ku matalay oo sala socda oo runtii ka wada shaqeynaya deegaanada Galmudug isku xirkeeda iyo nidaamkeena hadda ka hor aan soo arkin waxaan ku mahad celinaa annaga iyo xildhibaanka waa sala soconaa wixii jiro dareemsiyan rag badan hadda weydiiyeen meesha ka midana waas ay xoogaa si hoos ayaa loo dhameystiray haddana xaaladdu aad ay muhiim tahay amaleena jawaabteeda aad ka qaadan kartaan isla socodkanaga runtii xildhibaanku ayahan safar oo meeshan ku yimid oo ku indhadeynayo deegaanada Galmudug baahiyaha ka jira annaga xildhibaan annaga wax badan ayaa u gudbinay xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo ugu dambeyn la hadlay bulshada Matabaan iyo Girijir ayaa sheegay inuu gacan ka geysan doono sidii ay u heli lahaayeen xuquuqda ay ku leeyihiin Hirshabeelle ama maamulka gobol ee Hiiraan isagoo intaasi ku daray inuu gacan ka geysan doono wax ka qabashada baahida bulshadu la wadaagtay deegaankan wuxuu ka tirsan yahay horta Hirshabeelle gobolka Hiiraan uu ka tirsan yahay Hiiraanna Hirshabeelle uu ka tirsan yahay xuquuqay ku leeyihiin xuquuqdii ay ku lahaayeen dowlad goboleedka Hirshabeelle waa ka baaqatay deegaankan oo mashaariic horumarin lahayd kuwa caafimaad lahayd kuwa bulsho lahayd kuwa amni lahayd inaysan waxba soo gaarin maamulkuna waa nala wadaageen annaguna xuquuqaal ayaan soo noqon waa rajaynaynaa marka insha Allah wixii degmadan uga maqan gobolka Hiiraan iyo wixii uga maqan Hirshabeelle insha Allah waan doonaynaa waana keenaynaa hadii Allah wada ogolaado booqashadanada maanta aan ku nimid degmooyinkan Girijir iyo Matabaan waxay salka ku haysaa dabcan safaradii aan ku maray deegaanadan inaan ku urgalno xaaladaha ka jira dadka aan matalayno ee deegaankan ku nool aan la wadaagno dareenkeena ayagana aan ka dhageysano waxa ay qabaan iyo baahiyaha ka jira deegaankan annaguna aan u jahaysano sidii wax looga qaban lahaa oo baahidaas dawladda aan ku matalayna deegaankan looga dooni lahaa ama midda dawlad goboleedka ha noqoto ama midda federaalka ha noqoto si guud iyo si gaar ahaaneed buu isku arki doonaa insha Allah
xildhibaan mahad maxamed salaad ayaa intii uu ku sugnaa deegaanadani furay mashaariic uu hirgeliyey oo isugu jira ceelal iyo adeegyo kale oo bulsho waxaana sidoo kale uu sheegay in inta uu ku sugan yahay deegaanka uu ogaan doono baahida ugu baahsan ee bulshadu qabto si uu uga howlgalo wax ka qabashadooda. Cabdullaahi Warsamo Roble, Somali News TV, Matabaan.